السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan isku faa'iideynaa insha allahu tacaala sidee loo diyaariyaa jadwal waxaad u diyaarsan kartaa sidan inaad u diyaarsan karto lambar kow jadwalkan inaad ku camal fasho haddii aanad ku camal falahayn maxaa yeelay wuxuu kuu qabanay male laakiin haddaad jadwalka ku camal fasho ood maxaa yeelay aad sidiisa aad u ilaaliso maxaa adiguna maxaa yeelay adiguna waad ka faa'iideysaa marka ba sida loo diyaariyo hadaba isla eegna insha Allah sidan aad u soo furaysaa imaka waad arkaysaan jadwalkan ana diyaarsaday yani waxaan diyaariyay bishii 7 kowdeeda laakiin halkan imaka aniga ku buuxiyay 15 laakiin waxaan diyaarsaday jadwalkan markii Ramadaanta ka soo noqonay ka bacdi ayaan diyaarsaday yani jadwal waliba markaan fasax yar galo mid baan diyaarsaday yani midkii hadda wax ka khalkhaldo mid cusub baan diyaarsaday tusaale marka waxaan ku sheegayaa aniga imaka kana diyaarsaday tusaale ahaan uma ku leeyahay kan imaka bala waxaan iri teamka ardayda iyo naftayda yani waxaan uga tusaale qaaday adigu wixii aad qabanaysay iyo wixii kaleba inaad meesha dhex dhigtaa la doonayo tusaale marka jadwalka aad diyaarsanayso la budda inay maskaxdaada soo jeedo halka imaka waxa ay qoran sabti baa ay qoran ahad isniin salaasa arbaca khamiis jumca marka bilaa tusaale maalinta sabtida laga bilaabo ilaa laga bilaabo 10 habeenimo waa u jeedo Soomaa marka bilaa aniga tusaale waxaan idhi anigu da 10 anigu wixii ii gaara ana sameystay laakiin adiguna wax ku gaara inaad samaysato way waa inaad tiraahdaa sabtida yani waxaan bilaa tusaale waa inaad tiraahdaa inta sidan jadwalkaaga aad u soo qabsato اللهم صل على محمد انا waxa weeye inaad tiraahdo sabtida okay afwan sabtida maxaan qabanayaa illa laga gaaro yani saacad waxa soo qaadanaysa tusaale waxa soo kacda 5 subaxnimo soo kacda Soomaa 5 buura Soomaa 5 buura marka soo kacda waxaan leeyahay shaqo ilaa waxaan leeyahay ilaa laga gaaray 12 duhurnimo buura ilaa 12 marka sidaas sameeyso ilaa intaas way buuxiyaan maxaa ku xiga yani waa dadka hadda shaqo imika qofkii shaqeynaya tusaale wala deedna waxa tiri kowda nimaada kowda oo buura oo waxaan leeyahay waan seex يعني يدنا ساسي كاغا بوخدا waxaad leedahay tusaale oo kale hadana waxaan soo kacaya insha Allah labada waxaad leedahay saddexda goor hadii qofkii salaad tukanayo way inagu dad muslimiin oo inahay okay marka waxaad leedahay waxaan soo kacaya saddexda oo buura ah waxaan leeyahay salaada waxa laga baxaa imaka waxa laga baxaa afartayo aduu 10 daqiiqo كل أفرتو جوا إسكالي أنا بورمان هذا كنا على هاي وحلا جبها أفرتيو 3 دقيقة هذا أقول بدن توي مثلا شدة دقاروي وحلا هاي أفرتيو وحن سوق عيا توندو صلاة مركز كسر نقطة هذا ده حبرشة عادي يعني قفك حبرشة عادية وحلا ده وحبرشة وحن عادية أفرتيو وحكد 8 دقيقة كده بين عادي وحبرشة وحن كسر بحياة xilliga dad tusaale aniga 5 ka soo baxa 5 gowa ayaan ka soo baxaya male 5 gowa markaad ka soo baxdo marka eeg imaka jadwalkan aan ku qorayaa waxa weeye maxay ahay tole waa anuunba tusaale ku qoray laakiin inaad sidan oo kale u diyaarsato weeyaan oo inta sidan u yarayso aad sidan u diyaarsato waa qofkii table-ka garanaya sidan ha u diyaarsado aad doonto waraaq ku qoro sida markaad u diyaarsato haddii imaka sidaa markaad samayso horta tusaale sidaa isku xigsi haddaba aan iska jarno waxba ugama baahan markaad sidaa samayso dhammaan marka jadwalkii aad sidaa u samayso imaka waxaan sameynaynaa ayaamihii baan sameynaynaa haddaba waxaan leenahay sabtida baan leenahay hoos baan u degayaa sabtida markaan marayo sabtida waxaan leeyahay 5 galabnimo bala 5 subaxnimo waxaan leeyahay
اللهم صل على محمد iyada halkaa waa inaad bado waxaa tiraa qur-aan baan u leeyahay yacni waa ardayda qaar ilaa laga gaadhayo yacni farta yaryaraysaba haddaad doonto si uu kugu yaraado farta yaryaraysa haddaad doonto waxaad leedahay ilaa 9 oo buura ah anigu waan yaryaraysay 9 oo buura ah okay maalinta axadana waxaan leeyahay axadda waxaan u leeyahay markaa mid walba ood ku hoos qoraysaa waxaad leedahay 5 oo buura ah ilaa laga gaadhiyo 8 subaxnimo waa shaqo ilaa baad leedahay haddana ilaa laga gaadhiyo 12 waa qofkii shaqeynayay markaad sidaas samayso eg maalin walba deedna sidaasaad u wadaysaa yacni maalintii 12 wixii saacadii kale ka dambeysay sidaa u wad markaad sidaa u wado jadwalkii waa inaad soo saartaa isagoo sidan oo kale ah yacni waxaan tusaale kaaga wada sidan oo kale soo saar yacni bale makaaniga maalinta sabtida maxaan qabtaa sabtida waxaan u leeyahay qur-aan iyo maxaan u leeyahay kole qofkii arkaya way arkaya okay markaan ka gaadho 9 subaxnimo saacadihii saa iskugu xigsiy markaad jadwalkii aad sidaa u diyaarsato jadwalkii aad kasoo saarto sidan oo kale hadhow toole meel kusoo dejiso markaad meel ku dejisato maxay hay toole ku camal fal yacni imaka aniga jadwalkani meel buu igu dejisay marka la gaadho 8 subaxnimo waxaan leeyahay halkan oo maalinta halka ka sarreysa waa maxay waa axad baan leeyahay axadda okay marka sidaasaan u eegayaa 12 bale 11 baa ku hoos qoran 12 baa ku hoos qoran 1 baa ku hoos qoran wixii la qabanaya saas ilaa saasaad u dhamaynaysaa marka waxa weeye noloshaada haddaad doonaysid maxay hayto aad horumar gaadho waxa weeye waxaan kugula talin lahaa jadwal samayso jadwal marka aad samayso naftaada horumar bay gaadhi laakiin haddaanad jadwal samaysanin maanta waxaad qabanaysay iyo waxaad shalay qabanaysay ma kala garanaysa marka waxa weeye horta naftaada haddaad doonaysa inaad la xisaabtanto dee maxay tolo waxaa lagula xisaabtamaa naf loo sameeyo time laakiin naf bilaa time maxaad la xisaabtami miyaad karbaashin mahangool baad la dhici maya waxa weeye naftu waxay doonaysaa wax hagayaana waxa weeye dee u samee wax haga hay nafti waxay u baahan tahay oo kale wixii inaan lagu dhiirigeliyo yacni aduu naftaada dhiirigeli ku celceli mar kasta waxaan ku yidhi maxay tahay adigu naftaada qanci waxaad ku qancisaa inaad wax kasta qaban karto laakiin dhibaatada inagan haysata waxa weeye qofka naftiisa ma dhiirigelinayo naftaada waa la dhiirigelin karaa naftaadu dhiirigelin bay u baahan tahay yacni adiga naftaada maalmaha qaar waa inaad casuuntaa yacni waa inaad tiraahdaa nafay maanta wax fiican baad qabatay waa inaad meel fiican ku geeyaa yacni naftaada xaqi kugu leedahay waa inaad tiraahdaa nafay maanta waan kusoo macsuumayaa meel fiican oo raaxa leh baan ku geynayaa cunto wanaagsan baan kusoo siinaya adigu naftaada raali geli sababtaad u raali gelinaysaana waxa weeye maanta wax fiican bay qabatay laakiin hadday wax fiican qaban weydo waxaad leedahay nafay maanta wixii aan kuu diray waad qaban weyday maxay tolay waan kaa jarayaa maanta marka waxa weeye adigu naftaada la xisaabtan haddaad doonaysa inaad horumar gaadho qof walba waxaan kugula talinayaa waa naftaada jadwal u samee oo maxay tolay la xisaabtan maanta maalin ka mid ah halkaasoo waxaad arki doontaa isbedesha halkaasoo markay noqoto markay halkaasi isbedesho amba halkani ay isbedesho maalintaas dee amba waxaad arki doontaa noloshaadiioo isbedeshay amba waxaad arki doontaa maxay haytoolay jadwalkaad maalintii samaysay oon maxay haytoolay waxba iska bedelay marka waxa weeye adigu waxaad tiraahdaa maanta waxaan taaganay maalin la idhaahdo sabti amba waxaad tiraahdaa maalin waxaan taaganay axad maanta wixii ka dambeeya waa inaan naftayda aan u sameeyaa jadwal haga waa inaan naftayda u sameeya haddii kale waxaan kuu ogahay inaad waxaad maanta qabatay iyo waxaad berri qabanaysaa inaanad kala garanahayn marka waxa weeye naftaada la xisaabtan qof walowba إن شاء الله تعالى انتاسي اسكو ognahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته